السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي دمانتين ميل كستا جوجتان هو دمانتين عافماد قبطان نمعيسانتين ميل كستا حلي كستا يا ساعد كستا يدين تاي الله سبحانه وتعالى يدكو حفتيو ويلكم باك سو دوادا وإنو جيسكو سو نقناي يا نذر فيديو عافماد قبطان من نمعيسانتين جمعة وناكسن هابين جمعة سوق لي أي نوطة إن شاء الله بإذن الله كرين دم أي هو دمانتين ناد جمعيساتان مالي خير قبطان مالي نمعيسان مالي برواقيسان مالي دمانتين عافماد إيو نبت كليو إيو فرحداد كسوغنتين walaalaha gadaan laga soo biiro welcome kusoo dhawaada meel idinka jecelyahay walaalahaygii hore welcome back dhammaantiin waa hadsantiin wax badan baan channelka maqnaa hadaa tahay walaalaha gadaan laga soo biiray magacayga waxaa la yidhahdaa Nadia waxaan deganahay wadanka Mareykanka soo dhawow nagu soo biir walaalahayga qaaliga oon jecelahay kusoo biir insha Allah bidmilaahi waxaan aad ugu baashanahay dhinaca dhaqaalaha aniga ayuu aad caawiyay waxaan qof aad dhaqaalaha ugu xun laakiin alxamdulillah markii aan bartay budgetka markii aan finance ku noqday ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ii fududeeyay waxaan ahay wali qof spender ah waxaan rabaa qof kasta oo ila mida sideeda spender ah budgetku ka khaldana dhaqaalaha ku xumaa wax dhigashada ku xumaa in uu ogaado in aad gaari kartid horumar dhaqaale insha Allah bidmilaahi kareena wixii ilaahay ku soo galo wax ka save karan kartid wax ka dhigan kartid nolol fiican kaga noolaan kartid everything oo kusoo kala budget garan kartid mar walba wax muhiim ah inuu ogaano ma aha muhiimadu lacagta kusoo gashay inta ay xadidkeedu leegtay muhiimadu waxa weeye wax kusoo kala ma manage garan kartaa wax ma ka dhigan kartaa wax kasta oo budget garan kartaa nolol fiican ma kaga noolaan kartaa adoo lacag badan sameey ayaad waxaad ku noolaan kartaa zero oo deyn meel walba lagaga yeelan karaa adoo lacag yar sameey ayaad waxna ka dhigan kartaa wax ka samaysan kartaa nolol fiican ku noolaan kartaa dadka ka lacagta badan ku soo baahan karaan wax ku soo doonan karaan so everything waxa weeyaan sida aad manage karaysid lacagtaada so insha Allah bidmilaahi kareem channelka kan wixii tiba wixii dhaqaalaha wixii lifestyle wixii dhiirigelin ayaan isku qaybsanaa soo dhamaantii soo dhawaada insha Allah bidmilaahi kareem so inta badan aad ayaan u akhristaa commentiyadiina runtiina commentiyadiina aad iyo aad ayay ii farxad geliyaan sometimes aniga waxaan qof very sometimes inta badan commentiyadiina meel ayay iga taabtaan marka qof igu yiraahdo waa isbitaalay budget baan bilaabay runtii meel ayay iga taabtaan waxa jira aad commentiyo badan oo aad u raqiiqrooday qofna qof kale lama dhaqaalaha qofna qofka kale lama kharashaha qofna qof kale meesha uu joogo ma joogo inaga dhawaan kala duwan wadankii baynu joognaa qurbaynu joognaa qurban xas baynu joognaa dhaqaalaha inoo soo gala meesha aynu degana iyo waxaynu haysano iyo waxaynu bixino iyo awlaadad haysatid iyo familkaaga aad ma laba qof baata ma reer families qaba baata ma hooyo single mother baata ma wiil dhalinyaro baata ma gabadh baata way kala duwan yihiin ku xisaabtan marka meesha aad joogtid iyo waxa aad haysatid dhaqaale waa dhaqaale saving waa saving hadba saad xusif garaysa ayuu dhaqaalahaguna ku xiran yahay budgetku waa furaha dhaqaalaha marka aad budget leedahay guriga markaynu soo galno waynaynu furo ku furnaa soo maha budgetkuna waa dhaqaalaha furihiisii sababtoo ah budget markaad samaysatid ood ogaatid lacagta kusoo gashay iyo lacagta kaa bax waxbaad ka save garan kartaa inteena badan oo anigaygaasaan kamid ahaan oo lacag fiican samayn jira meel ay lacagtu gashay maan garan jirin sababto imay xisaabsaneyd insha Allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanay dhammaan walaalayaasha budgetka sameeyey horumarka gaadhay lacagtoodii dhaqaalaystay wax qabsaday deynkii iska bixi qasada tan inanta tan ay message soo dirtay inantan aad iyo aad ayaan ugu farxay gabadhan 3 years ka hor ugu tirabayay 3 xarunaan joog haysta qurbaan joogaa way single mother anay part time baan shaqeeyaa hooyaday 12 sanadood maan arkin wax aan ugu tir waxba iima dhigmaan part time baan shaqeeyaa odagii aan kala tagnay lacag yar oo igu siiya ilmaha iyo waxay timaka wax waan iska la keeni karlaay sanadooda waxaan ku gaadhaabay tiri 10 iyo dhowrkii sanadood ugu dambeysay sanad walba inaan hooyaday soo arkay laakiin awoodi waayay ku insha Allah wax kasta khayr bay noqonayaan wixii yaraad ay haysatay baan la budget gareeyay waxaan ku part time ka ma kordhin kartaa shaqada awar shir bay ku dhacday budget baanu dejinay maasha Allah budgetkii aanu dejinay way ka kormartay qofku adigu go'aanka marka aad gaadhido tiraado waxaan sameynaya ayaa muhiim waxay samaysay lacagtii 500 boodamaha ku caawin jiray oo Charles booda kala hal uu siiyay 500 iyo part time ka intay soo shaqeyso wixii ay awoodo 500 odaga kaliya save gareynay bil waxay timaadeen way ii goynaysa 3 years ka badhaas waxay ku qaadatay maasha Allah budgetka maalinta ay bilowday inay lacag save gareyso inay awradiso inay samarka carruurtu markay xidhantay shaqada yara badsi Allah ya baarik habeen dhawood way soo wacday Hargeysa ayay joogtaa saddexdeedii carruur ahayd way ka haysatay waxay igu tiri Naadiyay 13 sanadood hooyaday labadood maas waxay igu tiri hooyaday sanadkii 14aad ayaa ii socda aanan indha saarin
alxamdulilah bay tiri ciyaalka tigiladi baan usoo gooyey hooyaday lacag yar baan usoo qaaday biilashaydii 3 biloodaan muqanaa si diyaariyey kharashka hargeysa igu baxay waan soo diyaariyey waxay tii alxamdulilah waxaan go-aan kusoo gaadhay inaan 3 bilood hooyaday la joogo ilmuhu online iskuuliga dhigtaan farxad ayaan ku noolahay maanta alxamdulilah hooyaday waa arkay waxaas oo dhan waxay igu sababatay budgetka aan samaystay waxay tii not only kaliya budgetkii in uu ii hagaagay waxay tii noloshiiba xasiloon ii noqotay waxay tii sometimes bilaha qaybtood waxay ahayd inaanan waxba dhigi kari jirin ama ciyaalka iskuulkooda u baahda kharash meelkan kharash igaga soo dhaco waxay tiri laakiin muhiimadu waxay ahayd bay tiri inaan xasilooni gaadhay xataa bisha aanan lacag safe garan bay tiri qalbigu wuu ii qabowsanaa because waan ogaa taargetkayga waan ogaa goolkayga waan ogaa inaan meel fiican u socdo waxaan ku hamiyey oo ku faraxsanaa ilaa hooyo hooyaday nabadii ku gey ilaa hooyaday haga qaadin I can wait sanad hebelnaan hooyo u tagayo 3 years bay ku qaadatay laakiin alxamdulilah gaab abaayo horumar fiican bay gaadhay hooyadeedii maanta u tagtay waan la qiirooday maanta hooyadeed faraxsanta iyadii ay awoodo maanta inay tagtay inay hooyadeed waqti lasoo qaadato inay caruurteedii oona weligeed laba indhood hooyadeed saaran ay soo arkaan yacni waxay noqotay very emotional even anigayga alxamdulilah marka walaalayaal abaayo ilaahay subxaana watacaala iyaday hooyadeed haysu dheereeyo nolol fiican ilaahay ku nooleeyo haddana waxay tii markaan soo noqdo halkayga baan ka bilaabaya soo meel kasta aad joogtid wadankii haddaad joogtid dhulka haddaad joogtid adigu waxaaga eerseef garayso gabdhaha soomaaliya joogo sidoo kale ama ha lagu qabo ama yaan lagu qabin ama wiil ahow ama gabadh ahow ama hooyo ahow ama dhalinyar ahow adigu waxa kusoo gala wax ka dhigo insha allah bidmillaahi karin marka abaayo maanta horumar fiican ayay gaadhay ugu budgetku adiga ayuu ku caawimayaa marka aynu ognahay waxa kusoo gala iyo waxa kaa baxa waxaad ogtahay waxa kuu soo hadha haddii maanta $500 soo gasho oon ogahay $300 inuu biilkayga dhan yahay kharashkaygu baxoo dhan yahay oo $200 ii soo hadho labada boqol go-aan wax ku gaari karaa waxaan ku samayn lahaa ma sadaqaysanaya $50 ma dhiganaya 100 ma dhiganaya caruurta maxaan siin haddaa caruurta haddaa single tahay adigu maxaad u baahan tahay maxaad ku qabsan laakiin dhibaato waxay tahay intaynu iska baxno inaynaan ogeyn hooyinka ugu badan oo ina haysta dadkeenana meel kastaynu joogno waxa weeye ma ogi lacagtay naga baxdaa maanta banaanka haddaad u baxdid waxbaa kaa soo baxaya haddaad se $20 intaad qaadatid banaanka aad u baxdid $20 aad 10 kale soo baxdid waad ogtahay intaad $10 soo isticmaashid waad ogtahay $10 inuu kuu hadhay laakiin haddaadan ogeyn oo lacagta xagee ku baxday xagaan geeyey waxba ku xisaabtameen 20ka maxaan ugu talagalay xagu maray ogowna budgetku sidaydii ha noqonina anigu waxaan aaminsanaa jiray budgetku inuu areeri ku geliyo markaan maqlo qof yiraahdo budget baan sameeyay special ajaniga waxaan jir gaajo badanaa waxaan loo jir budgetka qof gaajo oo waxba isbedeli karaan oo sax wax walba uu haysto gaajeeda isku dir laakiin maaha budgetku actually wuxuu ku siiyaa freedom wuxuu ku siiyaa xorriyad wuxuu ku siiyaa inaad lacagtaada tirada كما كل shopping كرسانية $100 shopping كذا $100 محمد يران سينية $100 هبل بسينية هالك كان كل عن علاقة نقصو كذا أنت وادقنا وحكوسية chance وحكوسية فرصة وحكوسية فريدم وحكستو أتجاشا أتكو استماشين أنا قولي سبندر بعناي لكن الحمد لله وحكلو ولكن وحكستو عم بتشت كريه وحكلو كبرية discipline يعني تربية لا تراتد نو وحكن ومبهني waxa kan bisha tabaqadan doona maybe dhowr bilood kadib maybe muhiima ima oo wixii iska qabatay sidii beriga hore ku carari jirtay aadan noqon dad badan oo anigu aan kamid ahaan jiray ayaa still impulsive oo waxa markay arkaan aan ka joog kari jirin ku ordaya laakiin budgetku wuxuu ku baraya inaad naftaada controlshid oo spenderkaaga aad controlshid oo tiraahdo no 10 diracaan aan haystaan meel u baahanay diracaan ciyaalku inta loo dharahaysan miyaan u baahanay dahyadii hore guriga ii buuxa miyaan u baahanay waad yaabaysa gurigahana xabashka ka buuxa marka insha allah bidmillaahi karin aniga haddii anoo isbendera haddii uu budgetkaygii u isbedelay maasha allah dadka igu xiran ama gabdhaha budgetka sameeya ayaa og budgetku suu noloshaada u bedelo so insha allah bidmillaahi karin ha u malayn budgetku inuu xiriir ku gelinayo wixii kusoo gala budget karay nolol fiican kaga noolo guriga haddaad doonto magaalada ugu qaalisan deg laakiin guriga ma awoodaa gaarigaad gadanaysa ma awoodaa dharkan aad gadanaysa ma u baahan tahay wax kasta ood samayso even anything aad rabtid waad budget garanaysaa beauty hadday noqoto qurux hadday noqoto awlaadaada hadday noqoto sadaqo hadday noqoto wixii kusoo gala inaad wax ka baxsatid waxna ka dhigatid ayaa muhiima so insha allah bidmillaahi kan aad ayaan ugu farxay walaashay macaan gabadh kasta iyo wiil kasta meel kasta ay joogaan way gaari karaan qof aan budget lahayn waa qof aan balaan lahayn qof aan budget lahayn waa qof aan xoolihiisa ogeyn xaggeed gashay
xoolaha ku xaqay mareen maxaa kuu soo haray maxaad ku samaynaysaa balaan moo samaysay guriga hadaynu ka baxayn hadaynaan balaan lahayntaynu gaari iyo bas iska raacnayno maanta dhan magaalada wareegayna marka laakiin hadaad balaan leedahay dukaan hebel baan ku socdaa adeeg hebel baan u socdaa halkan aan soo maraya iskuul baan u socdaa shaqaan u socdaa balaan baad leedahay lacagtiina waa saas oo kale lacagta weliba waxay kaga sii xutay waa waraaqo meel aadi ma garanaysid marka insha allah bidmillaah kan aynu noqono dad inagu dhaqaalahooda u taliya wax dhigta wax meel dhigta waxay haystaan wax ka dhigta sadaqa ka baxsada nolol fiicanna kaga nool ha u malayn inaad cidhiidhi ku noolaanayso hadaad bajad samaysid waxaa jira dad badan oo iisoo qora oo bajadka iga dama doonaya inaan lacag ka warwaray haddaadan lacag ka warwarin hadda tomorrow baad ka warwaraysaa sababtoo ah waxaa kusoo maraysa xilli aanad waxba haysan xilli inta wix la-aan kugu dhacda loo xagi meelay mareen ma ogid aada ummadda baryatid od maalmoba tictok soo istaagtay adoo qaylinaya oo lagu dawaranayo so insha allah bidmillahi kariim waxaan rabaa inaga dhan inaynu horumarkaano inaynu waxaynu wax ka dhigana inaan laynoo dawarin so walaashay aad ayaan ugu farxay idinkana waynu gaadhaynaa inaguna wax kasta aynu maskaxdeedna gelin insha allah bidmillahi kariim idin video kala kulmayno khayr ayaa idin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan videoga like inoo saara subscribe and share garay